ilaahay baa abuuray iyo aqoonta hadda imika waqtigeena midnaa qaniga koobaad halka ay marayso ma wax ku waafaqsan baa mise waxyaalo badan ka kala duwan waxaynu ognahay kale in aqoonta bini'aadamku inkasta oo ay kobacdo mar oo ay kobacdaba ilaa ay nas caddaana oo kitaab ama sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii ku fadhiisan weydo arrinkaas ma noqdo cilmi weli dhammaystiran oo daraasadeeda dhammaystiran oo waxa la ogyahay oo aqoon dadka aqoonyahanka ee adduunka waqtigan imika taaganahay ku nool ay isla wada ogyihiin inagoo taasi ka duulna ayaa waxaan soo qaadanaynaa hadda inaynu mawduucyadaasi mawduucyo fara badan oo ijaaska qur-aanka aynu ka hadalno kana waxa weeyaan qaybtii ku horeysay markaanu leenahay abuurka koonka ijaaska inagoo weeyana dhinaca qur-aanka iyo sayniska iskooda baqna waxaa soo gudbinaya waxa weeyaan xarunta cilmi baarista dhaqanka iyo sayniska oo ka samaysan caasimadda Somaliland ee Hargeysa qaybteedii koowaad waxaan soo jeedinayaa injineer Mustafa Abdullahi Warsame wixii su'aalo markaynu mawduuca qaybtiisa ugu horeyno dhammayno comment-ka waxaad kusoo binaysaan email-ka idinku qoran waxa kaloo toos loogala soo xiriiri karaa wixii su'aalo laga qabo ama daraasadda qaabkaasi u samaynay cilmi baaris ku kordhinaya ama talo bixin jeedinaya telefoonkaasi halkaa idinku qoran marka bilowgeeda danu bilow waxaan jecelahay waqti inaan soo qaadano war horta dhulku samayskiisu ilaahay adduunka koonka ilaahay waxaa jira koonkan ilaahay uu sameeyey isaga ayaa ka khaalaq isaga ayaa abuuray isaga ayaa ka sheekeynaya sida uu abuuray bini'aadankana wuxuu ku yidhi daaseeye oo arka sida aan wax abuuray dhulkan socda qul siru fi lardi فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخر ودول الصعدة هو إيه يعني ليه دراسات سمعية وأركز سيدا أنه هو دولك هدو تنان عنده أول كلا ينور كلاوب وآخر إله وينا نركض النهج على إله مركا بيلو قفص أي قصة ميسنتي مركا سواق عادنا أسكا كان سواق عادنا وحويا واحد تأثيري إما كلا إلهضو la yiraahdo big bang theory waxa la yiraahdaa jira big bang theory waxa weeyaan dhinaca aynu iska waafaqnay xagga sayniska waqtiyadan ka horeeyay qarnigii 13 ka horeeyay waxay dhammaan saynisyahanadu aaminsanayeen in abuurku dhulku iyo cirku ay yihiin wax iska jira oo aan xaqiiq lahayn laakiin tadawurka cilmigu uu sameeyay qarnigii 20aad إلى كوبي لبارادنا وآد وحقيقوبي وحد تصلو تجي آيات أورانس أنت واحد سوق على لا حتى لو قاعد واحد جرا قومه فربضن القرآن أو إلهي نوجش كي لكن سقاه ويا لو لي فهم كيف هذا بيه فكل هذا كان وهي القرآن كواحد وين إلا باللقى صوت وقتي وصوت تجي إلا يامها واحد يعطونه شكله أقومتنا أنت عاي تدورتهم بمول بنجاردونت كما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عقب سورة الكهف آية كوبي كنتنا ومعنى هذا تاي وحيالا بضل حتاقيه أو أيضا دي أوغين أو إذنكم أيضا دي نستنين ويجرى halkan ayada hore aynu ku sheeganaa wuxuu leeyahay ilaahay waxyaabo markaa una waxaasi u faahfaahsanayn ayuu deeqayaa wax una ogyahay laakiin marka fahanto waxaad garan kartaa ilaahay deeqaasi oo qaybta kolba uu bilaadanka u sahlayo oo ku sahlo waxaan kala saarkaasi waxaan u jeeday marka isagoo ilaahay toos u lahayd gaalada ayuu xiriir warmiyana gaadoogeyn inay samaawadka iyo dhulku ay ahaayeen shay isku dhigisa isku yaala kaanad ratqan fafatahma هذا كله فوتشي وجعل من الماء كل شيء حي لأنها كان نولش أوردن إن أي سل وحاطب
سورة الأنبياء آية 6 مفسرين هore waxay qolada ciyaas ku yiraahdaan waxay aaminsanayeen dhulkuna uu sameysnaa cirna uu sameysmaa laakiin uu isdul yaalay dabeedna wala fuji marka sameyskaas arinta noocaas sida uu leeyahay sawlun yar oo kamid ah culimada ugu waqtigan aanu joogno ugu aqoonta wanaagsan xagga ciyaas cilmiga oo masriga ah ee geological field taxadda dunka ka ayaa wuxuu leeyahay samada iyo cirku iyo dhulku mar kaliya ayaa wada sameysmay oo Ilaahay sameeyay laakiin saas sameysan iyo dhul sameysan oo dul yaala ma jirin markaas hadda salna asaasna loo dhigay inay biyo nolosha u ahaato qolada big theory-ga aaminsan Einstein waqtiga hore uu soo saaray relativity-giisii waxa uu sameeyay inuu cameras ayuu in badan isku dayay laakiin se waqtigii uu 1913 ayuu Hubble odaygii la oran jiray astrophysicist ahaas ayaa Rutherford wuxuu sameeyay redshift wixii ay oran jireen redshift waxa weeyaan radiation cadad soo dado iyo light ay soo daynayaan dayaxyo galaxy-ga dayax iftiinada soo daynayaan meerayaasha inaga fog iyo xidigaha inaga fog ayuu qabtay badeedna waxa arkay inay casaan korso taamacneeda markaas in oo si badanayo macnaheedu waas oo si balaanayo dabeedna calculation-ki waxa ay noqotay maadaama oo mar walba arka oo balaarnayo Ilaahay balaarnayo waxa dambeeyna ku sheegi doonaa ideede waxa waanay jiri kartaa waqti markaasi ay meel ka baabantay oo wuxuba isku wada jireen Einstein markuu yimid dabeedna Hubble arintaasi wuxuu yiri meel uu dhafay waayay dabeedna sidaa ku qaatay way laga bilaabo waqtigaas ilaa hadda Big Bang Theory waxa weeyaan adduunkan iyo kawnkan aynu taaganahay waxa uu leeyahay qaab abuuray waxa ka soo isaga wixii ka soo rana waa makhluuq taasina sidaas ayay soo waafaqsan yihiin waxa markaas haddaba waxa la yiraahdaa markii Big Bang ay dhacday ayaa sameysmay qiiqii dabadeedna sameysay ayaa waxa ka sameysmay dhulka cirka xidigaha meerayaasha astroniska waxaan yiraahdaan oran cireebada waxa la wixii ku faafsan kaasi samooyinka ku faafsan iyo ku faafsan ayaa sameysay waan ahay makhluuq ku tubuuman iyo kadihiis samooyinka wixii yaala meerayaala ee jiraan ee socda iyo asaskii oo iyaguna waqtiyo kala duwan sameysmay dabeedna dhacay bay yiraahdeen science markaa waxay aaminsan yihiin markaa Big Bang ku dhacay waxaa la sameeyay waxa dabeedna sameysmay cirkii iyo dhulkii ayaa wareeg bay sameeyeen wareegii ay sameeyeen bay dabeedna qaab nidaamiya oo noocan imika ay yiraanaya aynu u daraasinay lagu yahay adduunka ay faysteen markaa waxa ka baxday artidii ahayd qarux markuu dhacay wax waliba iyadaas sideeda iskaga sameysantay khaaladu jirin habeeyay oo waxaan sida qaabka isku wada socdaan isku daba wareegayaan habaysan cidii sameynay isaga iska sameysay ayaa meesha ka baxday oo Big Bang Theory-gaas ayuu oo ka socdaa dukhaan iyo qiiq laga sameeyay arintan waxa halkaasi aragtiyada ay kala duwan yihiin quraan sida uu dhigayo science-ku ilaa hadda uu gaarin in uu dukhaan jay meeshii qiiq jiray iyada waa la isla qadanyahay oo la soo geeyay laakiin kaasa laga sameeyay ayaa naska quraan uu diidayaa oo aqoonta science-ku ilaa hadda ayna gaarin taa macnaheedu waxa weeyaan qadar amar buu Ilaahay siiyay maadaama khaaliqii yahay in ay tos ugu yimaadaan sida uu ugu talagalay isagu ay u socdo
marka ikhtiyaar buu siiyey in ay aqbalaan sida uu talagalay oo ay aansanaadaan in ay yihiin makhluuq oo ay amarka saa ku qaataan iyo inay diidaan iyagu markaa intay u yimaadeen samooyinkii iyo dhulkii la kala fujiyey intay yimaadeen ayaa waxay yidhaahdeen iyagoo qiiqa ayaa waxay yidhaahdeen waanu ku hogaansanaa waananu ku adeecana taa macnaheedu waxa weeyaan makhluuq noocuu doonaha ahaadee ilaahay toos ayuu ugu hogaansanyaa iyo khaaliq abuuray ayadda daliilkeeda sheegaysa waxa weeyaan suma stawaa ila samaa'i wa hiya dukhaan faqaala lahaa walardi itiyaa طوعا أو كرها قالتا أتينا طيعين ilaahay samada ayuu uga baxay iyada oo qiiqaasi big bang u dhacay u qaraxaas jiro markaasuu samooyinkii iyo dhulkii lahaadaasi wax u socda waxaa dameerkaas ku noqonaya samooyinkii walard iyo dhulkaba wuxuu ku itiyaa طوعا oo kar waxaa timaadaan ama idinku ay adaacsan ama idinka oo diidan qaalata atina طاعين dabeedna waxay yidhahdeen anigoo ku hoggaansan ayaan ku imanna faqadaahunna fi 7 samaawaati fi yawmayn wa awxaa fi kulli samaa amraha markaasuu mid walba qadar iyo nidaamkii ay u shaqaysay ilaahay u habeeyey ku talagalay ilaa inta qiyaamaha ay ka gasho nolosha hore samayska cirka iyo dhulka ilaa inta ay jirayaan sidee ay u shaqayn lahayeen ayuu ugu talagalay halka markay maraysay ayaa ilaahay sameeyey hal dhul marka hore dabeedna 7 dhul ay kasii hooseeyey 7 samuu sameeyey 7 samo oo kala sareeya na wuu sameeyey iyadoo taasi ay jirto 7 dhul waxa weeyaan dhulkan aynu joogno hadda laftiisa ayaa 7 lakab u qaybsan waxaanu ku qaadanaa qaybta geology-ga aynu taasi faahfaahin doona حديث أنا وين ناس عدا أو سجود قوة مسلم كا أو كسجود لك بكذي واحد قاعد تتواضع النبي أو تلمامية حديث كأي حديث فربنا وكلا أو تلمامية إن تتواضع البول قرآن كله شيء أي هو شيرانون كل كلفتيسا كان أسريان بلاد حكومية هنا أو يهاي أون كيو ري لحظة كنا أي كوضع رسيا سماذا إما كان مقطع ولا تكوبات تضبط سمنا بكسي صغير بدو البنا مسافة هالك أو يدنا قياستين شيء قلنا أي أصيل حيث وحوين وحنا قارنا ونقص صباحان مركو يهي سمعي سمدي كوبات سمعي أيو تضبط سمها طبعا كسي سمعي وانو إنو شيء وحوين وبلارين أيه si istaba jooga ayay cirku iyo samadu yahay u balaariya xawaaraha ballarka ma ay qiyaaseen waxay yiraahdeen speedka ilaa hadda la og yahay waxa weeyaan speedka ku socdo iftiinka laakiin speedka iftiinka mid ka weyn oo ka sareeya oo qiyaastiisana iyo yaqaano ayuu ku fidaa dhulku ayuu ku fidaa banjida afwan ay samadu fidaa isagoo taa ay sheegayaan ayaa weli والسماء بنيناها بأيد وإنها لموسعون سموه كعنت عينكم سمي وعند لموسعون وأنا مبلارين هي steadily expansion by that سي استبجوا أي فضان أي موضع يو جالكسيا أنا راح حبرتشيت كوي سمال درهم ayay baad isbalaarin ay u sameeyaan way sii kala fidaysaa sanad sii kala fidaysaa ilaa hadhow toole waqti dambe fiditaankaasi hadhow toole dabeedna ilaahay wax ugu talagal doono isaga ayna sheegi doono laakiin samadu way sii fidaysaa maadaama ay fidaysana waqti ka mida waqtiyada waa inay soo noqonayso fiditaankaasi ilaahay halkeedu soo celinay ayna sheegi doono sanada ilaahay tanaa soo fidiyaa ilaa qiyaamahana ay dhacso oo dib halkeedii hore ugu soo celinaya ilaahay saasuu finaya waana loo yahay oo imaka teleskoobyada hawlgalka ay dhacdaanee odaygii aan sheegay loogu macdaray kaas ayaa
قصة kaas qodobkaasi ayaa sheegaysa waa labada nasal la yidhaahdo iyo European Satellite Image meeska iyo qolooyinkaasi ayuu sheegaa. Halkan waxaan ku aragnaa Big Bang-ku dhibicdaa yar hadduu ka bilaabay meel kale waa tusaale halkaa hadduu ka bilaabay expansionkiisu sidan ayuu u ballaaray samadu maadaama ay sidaa u ballaaranayso iyo xidiguhuba ay sidaa usii ballaaranayaan qaab macnihii biilo oo kale ah oo la afuufay طلعت أو صناعي وقاب نوع عاصر قاب أي يو كذي لكن الله أعلم يعني تاهي إيه قاب كلام أو طلعنا مثلا اختياري إيرانتي أو كلام واحد الشيء اختيار غير واحد عارك شيء هل نشر أو كعر كاي لو نشر أي لك شيء هذا لكن واحد أو كلاي كلاكتيو فربنا بس كلام شيء قريب هذا اختيار مكان يشوفه وياش markaad geliso wax ku hornayn waqtigaas dheer needisku waa Soomaalidu ugu soo dhaweeyay kaas la arki jiray hada laakiin la arko ma waxa sameeyay markaa expression kaasi uu sheegay baarintaas uu sanad laanayo mar walba mise wax kale Allahu a'lam laakiin waxaan ognahay marka oo la wada og yahay cilmiyan aynu ognahay in baarintaasi samad mar walba ay ku socoto iyo xidigu ay sila fogaanayaan dhulka iyo xidigaha iyo galaksiyada iyo saqafyada samada iyo inta u dhaxaysay uma baynahuma waxa uu maadamadu u dhaxaysa ayaa jirta jiraantan waaweyn ee samada kuwa laftoodu way si kala fogaanayaan oo aydaasi ay nooc cadeynaysa inuu si waadax uu arag karnaba telescope ayaa hadana si quraanka ay soo kale u haysanaa halka markay taagantii oo soo hadaba wala dhameeyo ayaa wax dhici doonta bay yiraahdeen halka waxaad ka arkaysaa expansionki halka ayuu ka soo bilaabmay laga yaabo Big Bang-ku inuu meel kamid meelaha oo yahay uu yahay ilaa hadda oo aan la garanay ayuu Big Bang-ku ka dhacay ayuu qarxaas ka dhacay fataqbu marka hore isku dadna ila oo kaliya ayaa jiray oo kana carshuhu Allah arshigiisuna biyadu ayuu yaal arshigiisuna biyadu ayuu yaal intaas waa intaay ilaa fahansan diiniya aqidaan haysan inta kalena waxa iska hayrata wax isku jira sooyinka iyo dhulka wax isku jira bay ahayd dabadna ilaahay kala fujiyay si istiidiya oo balaar oo istaba joogana oo u fidaya sooyinka way u fidaya taado arkasaan كلوريسكي تاع دخانك وقت يرقي واكا كتنا halkaasi galaksiyada ayaa yaala laga bilaabo halkaas red radiationkaas inferior oo ka soo dhacayo ilaa halkaas oo ultraviolet rays-kiya iyo ajraanta kale inta dhaxaysa waa maado الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما inta u dhaxaysa waa maadada madow idana masharax doona daalada ayaa waxay yiraahdeen sida ay u balaaranayso ayaa waqti wax dhici doonta in ay soo duubanto hadii ay gaari doonto balarkaasi ilaahay gaarsiiyo oo isagu og yahay kadibna dib u walaalaabay wuxuu ku soo noqon doonaa dabadna singularity halkii marka hore ay ka bilaabantay ee ay isku jireen dhulka iyo samooyinka isku jireen ishii kaliya isku ahaayeen ayaa hadana mar labaad dib ku soo noqon doonta taasi macnaheedu waxa weeye qiyaamaha ayaa halkaas dhici doona dhulkan kaanu arkana iyo samooyinkan iyo xidigahan iyo meerayaasha gebigooda inta la wada laalaabo ayaa la dhigi doonaa sidii hal kaliya isku wada ahaayeen marka laga yimaado marka tirigaasi sayniska ما حقيقة وحشورة وحقيقة آية القرآن كأورنا يوم نضع السماء كضي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين حسبا النبي حمد الله أنا أصوت طوط ونو سمدا كضي سجل الكتب صور قطع حاشي لصوت طوط
halkaasoo kale aynu kasoo qaadno sidaa aad usoo duuduudo wuxuu tegayaa dabada halkaas iskugu soo wada ururso samooyinkii iyo dhulkii xidigihii yarayaashii astroriskii meteorkii dhammaan ajraamtii waaweyneed oo dhan dukhaankii wax la iskugu keenaya hal meel samadii iyo dhulkiiba hal meel ayaa la isugu keenay kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu markii hore big banku intii auna jir siday rataq u ahayd ayaa dabeedna laga dhigay waa ballan buu lahayo waa samaynaya hawshaasi goor uu samaynaya laisa lama sheeg laa ta'tikum ilaa bakta degdeg iyo ilriqsin ka yar ayay ku dhacsaa hawshaasi markuu ilaahay sheegay qaabka sida ay u dhici doonto laa ta'tikum ilaa bakta degdeg ayay noqon waqti ay tahay lama garanayo nabi maxamed oo sheegin aqoonta cilmiga ee imika kasigina may gaadhin waxay tahay adan iyagu big crunch marka dood bay jirtaa qaybtiisanaysaan inta ay rabaan waxay yiraahdaan big bang maadaama ay bilaabantay big crunch baa imanaya haddana big bang baa doona haddana big crunch baa doona haddana macnaheedu waxa weeyaan marka hore waxay ahayd rataq bay ahayd rataq baa dabeednay laba kala fujisantay haddana waa lasoo duuduubi doona halkii hore kusoo noqon doontaa singularity haddana waa la kala fujin doonaa haddana dib bay isku soo noqon saasun bay soconaysaa laakiinse waxa caddeeyey inuu unkataa noocaasi diiday hal mar ayaa la kala fujiyay ilaahay yidhi mar labaadna waa la kala fujin doonaa laakiinse mar saddexaad jiri mayso taasi waxa macnaheedu inuu daliil u ah maadaama dib loo soo celin doonaa samooyinka iyo dhulka iyo makhluuq oo dhan dib loo soo celin doonaa waxkii marka hore ahayd ayaa lagu soo celinaya singularity-ga ayaa waxa uu ilaahay leeyahay yawma tubdalu al-ardu ghayra al-ardi was-samaawaatu وبرزوا لله الواحد القهار marka hore waxaan niri markii qarax u dhacay samooyinka dhulku ay shay kaliya isku jira hay'adaha ay qarxeen ilaahay samooyinka ka sameeyay dhulkiina uu sameeyay toddobadaha iyo toddobadiisa iyo ajraam kale u dhaxaysa ee dhulkeenu ku yahay emiraash ka biin ayaa waxa balaadhin ku dhacay oo la balay laakiin halkan marka ay dib u soo noqoto waxa uu leeyahay kunasku cadeynaya in dhulka lagu bedeli doono dhul kale samooyin kale lagu bedeli doono kadibna makhluuq la soo saari doono ka lagu xisaabtami doono nidaam shana la galaya qaarna cadaab galaya kali khaliq oo kaliya ayaan halkaas saaray halkaa wixii ka dambeeyay ilaa hadda oo aasaaska dhulka iyo sida u socdo dhulku iyo samooyinku ay u ballaaranayaan ilaa waqtiga dambe sidiisu u noqon doonaa inta keliya laynoo sheego waa inta qaybta labaad qaybtaas halkaas inuu ku joojin doonaa qaybta labaadna waxaan geli doonaa bal haddaba samaysa dhulka ayaynu qaybta labaad haddii la ka dhigi doonaa dhulku suu samaysan yahay iyo siday u kala fog yihiin meelayaasha iyo xidigaha inta aqoonta science hadda ay hayso inoo markaasi u daliishanana raaca keliya xasanaa kitaabka iyo in inta inoo kala kulno والسلام عليكم ورحمة الله